kusoo dhawo Fan Academy taawo calaamada subscribe-ka kadibna furo gambaleelka taana waxay ku saaraysaa cashar kastoo aynu soo dhigno inuu kuu soo dhaco isla waqtiga aynu soo dhigno waad mahadsan tahay assalaamu calaykum darsigeena wuxuu ku saabsan yahay Noun Test waa tijaabo ku saabsan noun-ka noun-ka wuxuu ka mid yahay grammar-ka af Soomaali ahaan waxaa la yidhahdaa magac su'aalaha imtixaankan waxay ka kooban yihiin 10 questions 10 su'aalood instructionka lagu siina waxay tahay choose the noun from the following sentence waxaa lagu yidhi choose ka dooro the noun magaca from the following sentences ee ku jira jumladaha soo socda adiga istijaabi haddaba imise ayaad keeni kartaa fadlan runta ka sheeg markaad dhamaysatay fiidiyogan inta su'aalood aad garatay inoogu soo qor xagga hoose ee commentiga iyo inta aad qaladayba su'aasha koowaad this is my house this is my house kani waa gurigayga a b c house my this haddaba ka soo saar magaca ku jiro jumladan ma a house ah b my ah mise c oo ah this jawaabtu waa a this is my house ereyga house ayaa ah noun su'aasha labaad she has an apple she has an apple she ayadu has waxay haysataa an apple tufaax a she b apple c has jawaabtu waa apple she has an apple ereyga apple tufaax ayaa ah noun-ka su'aasha saddexaad where's Deka where's Deka aaway Deka a Deka b is c where jawaabtu waa Deka where's Deka Deka ayaa ah magaca su'aasha afaraad I live in Africa I live in Africa anigu waxaan ku noolahay Africa a live b I c Africa jawaabtu waa Africa I live in Africa anigu waxaan ku noolahay Africa su'aasha shanaad my teacher is tall my teacher macalinkaygu is tall wuu dheer yahay a tall b teacher c my jawaabtu waa teacher my teacher macalinkayga is tall wuu dheer yahay su'aasha lixaad the house is burning the house is burning gurigu wuu gubanayaa a burning b the c house jawaabtu waa house the house guriga is burning wuu gubanayaa su'aasha toddobaad a man came yesterday a man nin came ayaa yimid yesterday shalay a man b came c yesterday jawaabtu waa man a man nin came ayaa yimid yesterday shalay su'aasha sideedaad her father died in 1995
her father aabeed died wuxuu dhintay in 1995 1995 A died B father C her jawaabtu waa father her father aabeed died wuxuu dhintay 1995 su'aasha sagaalaad he has 20 camels he has 20 camels isaga wuxuu haystaa 20 geela A camels B he C has jawaabtu waa camels he has 20 camels wuxuu haystaa 20 geela su'aasha tobanaad whose bag is this whose bag is this boorsadan yaa leh A whose B this C bag jawaabtu waa bag whose bag is this boorsadan yaa leh imise ayaad saxday imise ayaad qaladay ku soo qor xagga hoose commentiga inta su'aal aad fahantay jawaabta ka hor inoogu qeex xagga hoose